mudaharaad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dadweyne tiro badan oo ka tiiraanyeysnaa tacadiyadii uu maamulka Somaliland kula kacay maalinimadii shalayta shacabka ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa lagu qabtay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. dadkan mudaharaadaya ayaa intooda badan madaxa ku xidhnaa calaamado casaan ah oo dadka Soomaaliyeed ay u isticmaalaan murugada, waxaana mudaharaadkoodan ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dadka shacabka ah ee ciidamada maamulka Somaliland ku waxyeeleeyeen maalinimadii shalayto magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. caruurtayada iyo maxaan ku raadaya maatada oo maanta leynayo siyaaya waa mid lagala xisaabtamayo maxkamadda heeg waa mid lagu saarayo yuudayalsan shacabka iyo caruurta iyo curyaamada iyo maatada ee guryahooda ku xasuuqayo guryahoodii yuudayalsan yay wax dhow la noqon yay la fududaan maxkamadda heeg. waxaan halkan uga tacsiyeynayaa dadkii maanta dhimashada iyo dhaawaca ku soo gaareen gobolka Sool. waxaan aad uga xumahay Siilaanya oo jabhada inuu maanta gobolkayga intuu ku soo duulo shacabka laayo waan isgaranaynaa ragga buuraha ka soo tagi jiray waligiis. maanta caruurahayaga iyo maatadayada ay maanta ku laayeen Laascaanood oo ay ku laayeen buuhoodle inaanay ka naasnaasinayn. Siilaanya wuu ogaan doonaa ta ku dhacda iyo taan ku samayno. Siilaanya wuu ogaan doonaa. waxaan leeyahay waa shacab, waa caruur, waa arday, wax qangaari kuma jiro, waa dumar suga Siilaanya waxa moodinaad gul gaadhay guuldarraad ku sugan tahay maadaama aad istaag taagan shacabka dhibaato ku soo duushay. wararka naga soo gaaraya ilaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay taxshiirad shalayta ciidamada Somaliland kula kaceen dad shacab ah oo mudaharaad lagaga soo horjeedo maamulka Somaliland ka dhigay magaalada Laascaanood ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa iyo hadda inta la og yahay khasaaruhu gaadhayo dhimashada 2 ruux iyo dhaawaca 5 kale, inkastoo ay jiraan ila wareedyo kale oo sheegaya in khasaaruhu intaasi ka badan yahay. mana ahan markii ugu horeysay ee ciidamada maamulka Somaliland ay ku waxyeeleeyaan magaalada Laascaanood dad shacab ah oo dareenkooda ku aadan diidmada joogitaanka ciidamada Somaliland ee gobolka Sool ku muujinaya isu soo bax. waxaana inta badan ay warbaahintu ka faallootaa tacadiyo isugu jira dil, xarig iyo dhibaatooyin kale oo lagu kaco dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Laascaanood. Cabdiraxmaan Soomaali, Royal TV, Nairobi, Kenya. wiilashii dhalinyarada ahaa ee ku dhaawacay maalintii dhawaato gobolka Sool dhibaatooyinkii ka dhacay lixaad kala ahaa ee maxay ahayd annagoo dumarka ayaa waxaan soo booqanay inaanu gabdhahaas caawino oo taageero aan u geysano maxay ahayd dhakhtarkooda iyo waxyaalihii kale oo loo qabanayo doofacaanka inaanu u geysano baanu ugu talagalnay. aniga waxaa wareysanaya gabdhaha maxay ahayd Aamina ku soo dhawow. لكن هنقا بحانيس او دولكيغا نوغا بحانا وداوعيا قال waxna ka maran waxna ka doonimay wayna idleen maadaama haday dileen anoo dhaawacan waan la dagaalamana waan la jihaadana dadkayga waan xoreynana waan iska celinaa. dareenkaaga waa sidee hadda? dareenkaygu waa mushaahiidnimo. waad ka labantay imika xaggee kugu soo gaadhaysay? haddaad sawiraysay dareen nooca ayaad ka qabtaa? dhaawacan soo gaaray hadda waa sidee caafimaadkaaga? gacan baa inta lagaa jaray? dareenkaaga waa sidee? kelidana khasa kaga dhacday? xageed ka taagneed idinkoo markaa qadeynaya mise idinkoo banaanka taagan baa dareenkaaga waa sidee? dareenkaaga waa sidee? dareenkaaga wax wadda hadiga saada laakiin dareenkaaga waxa suuqan karba banana ujeedaan kana isagoo taagan meel oo wada ay xafada ku dhacday mahantiina caloosha ay kaga dhacday dib aad iyo aad u badan buu la kulmay
حصاها في هذا وحنا رجينينا عاصمة كيس إنه نقض مد آدي آد متقان الله سبحانه وتعالى حق يسوي رجينينا حصاها في dadkeeni dhibaatada loo geystay wax san soo koobi kara maaha dadka la xirxiraa ka badan dadka mataqaana la jiidiyaa ka badan fasahaatay waxaan jecelnahay Allah subhanahu wa ta'ala inuu dadkeena uu u dhibdayo madax saraan uga dhigo marka walaalayaal sida u jeedaan ba hadda uu fiican yahay caafimaadkiisina uu soo naaxay marka hadda inkastoo uu kala garanayo maalintii saddexaadna ay tahay operation ayaa lagu subiyay waxaana lagu subiyay dhanka caloosha fasahaatay yarkan labaadna sida u jeedaan waa dibnaha saddexaad ee dhaawaca soo gaaray Maxamed Jaamac ayaa la dhahaa hasaatee waa dibnaha dhaawaca mataqaana ay ka soo gaadhay xabadda inta qoorta ay ka soo gashay ay halkan afka uga soo baxday problem dib aad iyo aad u weyn buu la kulmay hasaatee hadda uu caasimaaday Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa waxaan uga rajaynaynaa inuu caafimaado hadda markii meesha la keenayay uu miir la haddana miirkiisi waa kan uu fiicnaaday dhakhtarinta aad iyo aad ugu dadaalay دي الله سبحانه وتعالى هدينا الوحي بدي ضد دخترين يعطوني علم لو إلهي نسيي إلهينا سبحانه وتعالى ضد كنا نجمع مريو وحنا شعلها هاي ضد كما تقنا دبعت هذا آت وحنون قستي وحنا الله سبحانه وتعالى حق يسوي رجينا إنه إلهي نقطة حصاها دي حسوقي شعب كان حسابها كذا بين دونه. يا عالم كا إلا لا يرضى يدي يسكول كي كشرته لو لا يسيا محرمة أو فالحن ثم لا نايدون يسعر قوسي برجي هوري سياد بره أي دون يسعر قوسي أنا تذكر كلنا نهدر قبل لا يدون يسو سولي السنة يا عين أيهين قبل لا أساسي أو خاتم السوق استد وما ليا أنو تقالما إنه أو محي كل هذا إنه يسكعلنا إنه لما أنت عنو نهاي شعب كنا كم إذا يستنى هاي إن نسكعلنا والله دقالنا معي تفول حمد إنه قلاش السنة يا تودا إذا يكون دعوة عن تيجي السكول كذي كشرته وأنا أرضي داير حتى أنت لا لاين وحلول لا يارقوس ما أذكر حكوريتنا يا روشوجا أختارك لا سنة دعوة يو ضد تعبانينا أي ولا تشيفان أيام كوريتنا يا هدر مسؤول كدكتورك أو مسجل iyo agaasimaha dhakhtarka ayaan ku wareejinayaa tabarucaadkaas oo ka yimi gabdhaha jaaliyada Kuwait ayaan ku wareejinayaa gabdhaha jooga weeye gabdhaha saaxiibadahayga jooga Kuwait cidina uma maqna ee la uma qaqbin laascanood sida arkaysan deeqdaas waxay ka kooban tahay 15 furash iyo $500 aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ugu hambalyeynaa xuska ay soo yeeleen maadaama aanan uga baran dadkan diaspora ama dibadaha jira caawinooyin caynkaas oo kale inay kusoo tabarucaan xaaladan haddeeta keliya ma taagneen marar badan bay dhacdaa runtii marka waxaan odhan karaa waa mahadsantihiin mooyaane kale haddaan idhaaho garamaayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad intii horta nuxurka lahayd dhakhtarka yaa yiri loo baahnaa in la yiraahdo waxaan uu kaliya oo ugu darayaa mar labaad waan u mahad celinayaa gabdhaha jaaliyada Kuwait way ka masuul tahay Faadimo Askar Xuseen sida xilkasnimada ee ay masuuliyad isaga saareen alaabtan ama hantidan hortaalla ee ay ugu deeqeen isbitaalka Laascaanood marka aanan hadalka badinayn waxaan aad idinka rajaynayaa in ilaahay wax khayr qaba idinku bedelo deeqda dadka bukaanka ee u baahan maanta aad ugu soo tabarucdeen gargaar kala duwan oo haweenka magaalada Laascaanood iyo gabdhaha jaaliyada Kuwait ee deegaanka Khaatime State ay soo gaarsiiyeen dadkii ku dhaawacmay mudaharaadka Laascaanood waxaana qalab furaashiyo iyo lacag iskugu jira ka gudoomay maamulka caafimaadka iyagoo haweenka magaalada Laascaanood iyaguna deeq kala duwan soo gaarsiiyeen dhaawaca waxaana xaaladooda caafimaad dadkan dhaawaca ka xog waramay mid kamid ah dhaawaca gacmo inta laga tiray daranka goosay كلنا خاصة كذا عارف حاجات كتاجنا نشوف بنانا بجدان كان سوون كاجن ميل أو وضعي حتى قطعي محاكينا عروشي قطعي دب آدي آد بدن بنا لكل من حصاها في هذا الرجيننا عاصمة كيس إنه نقض مد آدي آد متقان الله سبحانه وتعالى حق يسوي رجيننا وين يجدين
maadaama hadday dileen anoo dhaawacan waan la dagaalamayna waan la jihaadana dadkayga waan xoreynana waan iska celinayna dhaawacayso karo وكلهم في أمك حاجة كويسة وقارسة حاجات تبرسة طبقة ما أذكر حنكون ريتشنا يا روجوجا أختار كيلا سانو داوع يو ضد تعبانينة أي ولا تشيفان سجل يو أقاسمها أختارك أيام كون ريتشنا يا تبرعات خاص وكيمي قبلها شالية كويت. سيدا أركي سال ديالات waxay ka kooban tahay 15 furash iyo lacag $500 aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ugu hambalyeynaa xuska ay soo yeeleen haweenka magaalada Laascaanood ayaa iyagu soo jeediyay qurbo joogta deegaanada SSC in ay u soo gargaaraan walaalahooda dhibaataysan ee dhaawaca ah dhanka kale ururada haweenka iyo dhalinyarada magaalada Laascaanood ayaa shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada waxayna cambaarayeen falkii ciidamada Soomaaliland ka geysteen magaalada Laascaanood kadib markii dhalinyaro mudaharaad ka sameeyeen magaalada Laascaanood soona bandhigeen codkooda si nabadgelyo ah taasoo ay u adeegsadeen ciidamada Soomaaliland hubka noocyadiisa kala duwan maxay ahayso inuu ku soo gabagabeeyay markasta hadalkayga ku soo gabagabeeyay siyaasiyiinta kastaba ha u ahaadeen maxay ahayso ruuxda maxay ahayso haatu karaama siigina maamulkan uu shaqeeyaa waliba waxaan idinku dareynaa Soomaaliya kala go'ay maysaa waxaanu tacsi u direynaa dadkii reer Sool ee lagu laayay gumaadkii ka dhacay magaalada gudaheeda ee loo adeegsaday tiknikada iyo ciidamada military iyo booliska inta ka bacdi waxaanu leenahay intii dhimatay Allah ha u naxariisto janna Allah ha waraabiyo aamin intii dhaawacantayna Allah ha u sahlo oo xanuunka iyo xabada ku dhacday Ilaahay ha ugu bedelo caafimaad khayr qaba ay ku waran dadka u dhashay gobolada Sool Sanaag Cayn kaasatan buu hore dadkii lagu xasuuqay iyo gobolka Sool dadkii lagu xasuuqay intaba taxsiib aan jarayaa waxaan halkan tacsi uga diraynaa dhalinyarteeda halgamayaasha ee ku geeriyooday gobolka dhexdiisa maalintii shalay toole dagaalkaas aan u arkanay mid aan ku faraxsanahay dhimashadayada iyo dhaawacayaga intaba waxaan leeyahay SML xaarka iska dawacayda iska daa hebel ha dhinto iyo hebel ha dhaco iyo waxba kama jiraan iyo wax aan soo dhamay waxaan waxba ka jirin idinka waxba idinka jirin ka baxa waan idin leeyahay waa dhisan tahay khatimaysteed waa dhisan tahay waana dhisnaanaysaa Sool Sanaag Cayn waana ka xunnahay Soomaaliland mowqafka ay taagan tahay inay marna beebe iyo qaar noo soo dalbato marna ay tira xabsiyada naga buxso hadda inta ilaa meenta kala xabsiyada ku jirtaa bahdiisida bahal iskale annagu ay tamimayno abaar tamimayno abrahaygi baa soo hadlay dhalintayadii baa hadlay ragaygi baa hadlay waxaan anigu kelmad kaliya ka sheegaya waxa weeye wixii cayya waa cay maaha wixii anagu khaatuma seegmaniyo ilaahay khaatumada khayr noogu khaatimo waxaanu maamulka iyaga ula baxnay khaatumo sida markasta loo xasuusto kelmadda ah ilaahow khaatumada khayr noogu khaatimo khaatumo way hagaagtay horseedkii nabadda weeye annana waan habaynay ilaahow noo horseed dadka khaatuma seeglana ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahow khaatumada khayr noogu khaatimo anagu khaatuma seegna ma odhanayno khaatuma seeg baa jiina walihin عدنان صالح محمد سومالي سات مقالة Laascaanood ee xarunta gobolka Sool barnaamij aad u ballaaran oo lagu taageerayo maamulka Khaatumo State of Somalia ee dhawaan lagu soo yeegleelay magaalada taariikhiga ah ee Taleex lagana soo horjeedo dagaaladii ka dhacay magaalada Buuhoodle iyo Laascaanood ayaa ka dhacay degmada Xudun oo iyadu kamid ah degmooyinka ugu waaweyn gobolka Sool barnaamijani oo ahaa mid aad la isugu soo baxay ayna isugu yimaadeen inta badan qaybaha kala duwan ee bulshada ardayda waxgaradka dhalinyarada iyo haweenka degmada Xudun ayaa ahaa mid lagu muujinayo dareenkooda shacab ahaaneed ee ku aadan
taageerada dowlad goboleedka cusub ee Khaatumo State of Somalia laguna dhaleecaynayo awoodaha la sheegay in loo isticmaalay shacabka ku nool magaalada Laascaanood kadib kolkii la bilaabay xafladda barnaamijka waxa lagu furay ayadaha Quraanka Kariimka intaasi kadib waxa ugu horeyn ka hadlay Jaamac Ismaaciil kuna dheeraaday muhiimadda midnimada Soomaali weyn sheegayna in ay garab taagan yihiin maamulka Khaatumo waxaana uu cambaarayay dowladda Somaliland waxyaabaha ay dadka maatada kula kacayso waxana hadaladiisii kamid ahaa marka nimankaas maamul laguma sheegi karo dowladna maaha waa SNM hormado ay waxay la soo noqotay SNM ee Somaliland maamul maaha haday dowlad yihiin meel rag jooga eegan laayna maato iyo dumar maalin walba gobolku xasuuqeen waxay ku guuldareysteen siyaasadii wuxuu ka bilaabay 4 bilood markuu joogay buu kalshaana ka bilaabay yawaarina waa ku xiji erigaalu ku xiji buu hoodle oo laba goora waxaanu leenahay Somaliland iyo Somaliland waa dal waxay sheegtay Somaliland bay isku shaabadeeyeen iyagu Somaliland waa dhulka maaha dad Somaliland nin waliba deegaanka uu dego buu Somaliland ku yahay ee nin laga gacan sareeya oo khasbaya ma jiro sabirkii nabi ayuu baa ku jiray waa naga dhamaatay muddadii waqtigii waa naga dhamaaday nin walba waajibkiisaanu marinaynaa ninkii nagu xadgudba nimaanu ku xadgudbayno iyo nimaanu ku duulaynaa midna ma jiro laakiin kii sidaa loogu soo xadgudbay sabirkii nabi ayuu waa naga dhamaaday diyaar baanu nahay maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taasaan taageersanahay waa u taagannahay waad aragtaan kaasoo khayr taasaan ku rahaysanahay maalin walba maatadini baa lagu dilayaa Laascaanood rag idinkoo kali wardhiidhiya oo qaadka iska daya ku dhintae oo dagaartaga sidaasaan waaye dowladda inoo dhalatay oo la yidhaahdo Khaatumo oo talaax ka dhalatay oo Soomaaliya raacsan ha noolaato ha jirto ha joogto cadowgeeda soo kalaansan oo tan iyo waqtigaynu garanayno aynu iska nalaynay oo dhiiggiisa diidaynay ee dadka dariskaynala ah hayahan hoosamaran ninkii gobonnimo nocow gumaysi ninkii rabow ninkii gobonnimo nocow gumaysi ninkii rabow adduunka xaggaad ka geli adduunka xaggaad ka geli markay guulayso tani markay guulgaadho tani markii caalan noo babado adduunka xaggaad ka geli allahu akbar ilaahay guusha hayna gaarsiiyo ilaahay danteena hayna tuso maanta danteena waynu gaadna ilaahay haynala garab istaago ilaahay haynaga aqbalo ducadeena ilaahay haynala garab istaago ilaahay dadka yaga iyo dalka yagaba ilaahay subxaanahu watacaala nabad ha nooga dhigo ilaahay nabad ha nooga dhigo dalkaa dadkayga ku soo doonaya la sheegayo inay Laascaanood iyo Buuhoole iyo Kalshaale iyo Erigaabo ay xasuuq uga geysanayaan ragga ha u soo badheedheen haweenkaas ka daayeen ragga ha u soo badheedheen haweenkaas ka daayeen sidoo kale waxa isna hadallo muhiima ka soo jeediyay madashaasi Cumar Xasan Askar oo kamid ah waxgaradka degmada Xudun sheegayna in ay isu diyaarinayaan dagaal sida ay ugu diyaar garowday dowladda Somaliland una mahad celiyay bulshada ku dhaqan magaalada Buuhoole caalamka laga waarag qoruunintay sirto golayaasheeda baarlamaanka iyo kuwa guurtida sheeganaya iyo kuwa sheeganaya suldaamadooda iyo kuwa sheeganaya culimaadudiinkooda dhiig dad isku raaca oo ku xalaalaysta oo ku muujiya haddana dareenkooda oo ku farxa caalamka laguma arag waxaana u arkaa quruun rogmasa oo haligmasa
marka waxaan halkan uga baaqayaa aniguna dadka aan afkooda ku hadlayo gobosha ay qaateen intaasoo ummada intaasoo culimaa diina ee colaadda ay iclaamiyeen in loo diyaar garoobo oo lala qaato weliba waxaan carabka ku dhufanayaa buuhoodle aad bay u mahadsan yihiin aad baan ugu taaniyadaynayaa ragga jooga laascaanood ee weliba culimada ah ee dugsanaya dhiigga iyo dumarkooda iyo carruurtooda maalin walba lagu laynayo fadhiya masaajidada laascaanood cibaadada laydinka aqbali maayo waxaan iclaaminayaa jihaad waxaan kaloo halka taa intaasaan ku dhaafaya waxaan kaloo halka ka taageeranaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha israacdo khaatuma ha guulaysato khaatuma ha guulaysato juunnayn ha guulaysato intaasi kadib ayaa iyana waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Xudun ee ka soo qayb galay xafladan oo ahayd mid amnigeedu sugnaa isla markaasina aad u degan oo aan wax rabsho ay ka dhacan iyaga oo dareenkooda shacab muujinaya waxaan hadaladoodii ka mid ah maanta shucuurteena halka ka muujinaynaa inay Soomaaliya mid tahay mid oo ayna laba noqon karin dad isku afa isku luqada isku jinsiyada isku deegaana waa isku diin qura walaal waxaan maanta muujinaynaa shucuurteeda oo ah inaan Soomaaliya ay tahay mid qura waxaan ugu baaqayaa dadka dega gobolada Sool Sanaag iyo Cayn inay gacmaha isqabsadaan oo ay taageeraan maamulkooda Khaatuma State of Somalia waxaanu leenahay walaalaha iyaga muslimiinta ee Soomaalida ee meel kasta jooga ee diidan Soomaaliya inay kala goodo waxaanu leenahay xambudno isukaya garabkaaga oo soo dhaweeya maamulka Khaatuma waxaad meel uga soo wada jeesataan dadka ka soo horjeeda qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed Soomaalidu dhaqan ahaan iyo garab ahaanba waxa lagu yaqaanay dad intellectual nin weyn oo waliba sheeganaya mas'uuliyad oo loo xilsaaray intaasoo madaxa sheego waxa wafkiisa ka horaayana aanay u qiimaysnayn waa mucjiso rabbaaniya ninka la yidhaahdo saylici kursi midqana darabti qof shaqadiisa baan qabiilo ku qancinaya kaasi waa khayra mas-uul xasha lilaahi wax intaa ka badooran maayo ninka la yidhaahdo dabadeeda waxaa laga leeyahay xaabsade la hadal wallaana nafkayga xaabsade la hadli maayo xaabsade salaamaya waxaanu aad uga xunnahay dhalinyarada iyo shacabka lagu leeynayo gobolka Laascaanood iyo Buuhoodle haddaanu nahay gobolada SCC Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaanu aad uga xunnahay dhalinyarada lagu leeynayo gobolka Laascaanood Soomaaliland ma jirto waxna kama jiraan SNM ma jirto Khaatuma State of Somalia ha noolaato Khaatuma ha jirto Khaatuma ha noolaato Soomaaliland ha dhacdo SNM ha dhacdo هذا نمسك تاغيرنا maamul goboleedka yaga waxaanu ku taageeraynaa murug maskax gacan bira waxaanu ka soo horjeednaa jabhadda SLM waxaanu ugu baaqaynaa goboladayada deegaanadayada ka kooban 3 gobol inay midoobaan oo ku midoobaan maskax gacan bira murug af adin oo iska xoreeyaan jabhadda ciidamo hore uga tirsanaan jiray ciidamada Somaliland ayaa maalnimadii shalay soo gaaray magaalada taariikhiga ee Taleex iyadoo ay ciidamadani kolkii ay soo gaareen magaalo loo gudbiyay halka ay magaalada ka degan yihiin mas'uuliyiinta maamulka Khaatumo halkaasina ay uga warbixiyeen sababaha ay u soo goosteen isla markaasina ay ugu soo biireen ciidankooda iyagoo eegaya danaha ummadooda Cabdi Jaamac waxaan ka tirsanaa in guutada labaad saldhigga 12aad waxaan imid xalay habeen hore maantana waxaan ku sugnahay magaalada taariikhiga ah ee Taleex
waxaana sababay inaanu soo goosanno la coloobay shacabka boolaha SSC waxaana nagu kalifay marka aanu aragnay shacabkayaga sida cadowtinimada leh oo loola dhaqmayo sidaa darteed maamulka silaayaanana colaati maanu la qaadanna inaanu la colowno markaad timaadeen magaalada Taleex oo shirweyne Khaatimo ku socday sidee lagu soo dhaweeyay waxaana lagu soo dhaweeyay si ballaaran dadkayga baanu nimid waxaanu u nimid maamulka Khaatimo State waxaana lagu soo dhaweeyay si qiimo leh waxaanu u nimid dadkayagii iyo dawladayadii aanuna garab istaagina awalaanu ahayn waxaanu mustaqbalka aanu noqonina inaanu noqono kuwa dadkooda iyo dalkoodaba u shaqeeya oo difaaca dadkooda iyo dalkoodaba si hagarliya u difaaca cid kastoo soo faragelisana gacan ka geysta sidoo kale madaxweyne Axmed Karaash ayaa halkaasi uga mahad celiyay isla markaasina ugu baaqay ciidamada ku hadhay maamulada Puntland iyo Somaliland ee u dhashay deegaankani in ay iyana ku soo biraan ciidankooda aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa kuwa kale ee dulinimada ku nool inay maxay tahay idinku daydaan dalkiinni iyo dadkiinni markaad u adkaysan weydeen markaad xorriyad u mari weydeen suuqa markii laydinku amrayay inaad laysaan hooyooyinkiin iyo carruurtiinnii damiirkiinnaas waa mid heer sare ah waa kaan ku ogaa ciidamada reerka Sool iyo Sanaag iyo Cayn ciidamadooda waan garan lahay weli kuwa ku sii dambeeya oo u adkaysanaya waxyaabaha noocaas insha Allah waxaan rajaynayaa iyaga u dhow inay hawsha ka qayb qaadan doonaan wuxuuna qarsoon yihiin sida nin nool oo maxay tahay ka sugaya nolol bari mar aan fogeyn wala arki doonaa inagoo xuduudkeennii oo xora aynu dhex marayno dhanka kalena mas'uuliyiin iyo isimo ka socday beesha Cabdiraxmaan Harti amaba kaski qabe ayaa soo gaaray magaalada Taleex iyagoo oo horena Sooriyo ka socotay beelahaasi ay u soo gaadhay magaalada Taleex balse ay tahay haatan markii uu horeysay ay mas'uuliyiin ka socota beeshaasi ay soo gaadhaan magaalada Taleex iyagoo oo sheegay in ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin maamulka Khaatimo ayna iyagu kamid yihiin beelaha ku midoobay maamulkan Khaatimo State of Somalia waxaana halkaasi ka hadlay Suldaan Siciid Guuleed oo kamid ah ismada beeshaasi kuwooda ugu mudnaanta weyn leh waxaana hadaladiisii kamid ahaa Suldaan Siciid Guuleed Sudaanka beesha Cabdiraxmaan Harti waxaan taageero buuxda taageeraynaa maamul goboleedka Khaatimo oo ay dhisteen dadweynaha ku nool Sool Sanaag iyo Cayn kuwaas oo aan nahay anagu ka mid aan nahay waxaan sidoo kale leenahay ku talabixinayaa inay Puntland taageero maadaama ay dad isku diina isku dhaqana walaala isku degaan sidoo kale waxaan leeyahay Soomaaliland inta lafteeda dadku wada walaalaha oo isla nool oo isku degaan waa in la helo nabadgelyo waa in la helo haddii aan nabadgelyo la helin dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho waxaan leenahay oo talab buuxda ku bixinaynaa dadka in dirta colaadeed horinta laga daayo oo dadka walaalnimo ay dhammaan walaalo noqdaan maamulkan hiil iyo hooba waa la garab taaganahay dhismaha la dhisana waxaan ku lahayn ka qayb ahaan oo la qaybsadan waxaan ku leenahay waxaana ka dhisnay iyadoo ay haatan lagu jiro waqti xasaasiya shirkii Khaatimona soo gabagaboobay laguna soo dhidbay maamul goboleed ayaa haddana waxa ay soo taraya oo kolka ka dambeeya soo badanaya taageerada uu helayo maamulkani iyadoo ay jiraan waliba beelo aad u tiro badan oo cadeeyay in ay ku soo biirayaan kana mid yihiin maamulka Khaatimo kuna qanacsan yihiin qaabka loo dhisay una noqon karo mid Soomaaliya midnimo u horseedi kara Maxamuud Saleebaan Somalisat TV magaalada Taleex Kusoo dhawaada
Khartoum State. Bishii asaasay ama loo geliyay fadlan la fariisto waxaan kelmad siinayaa geesiyaasha daafuray isla markaana horseeda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Shirkow waa salaamay. waxaanu nahay ciidankii booliska saldhigga dhexe ee ku magacaawna Somaliland. xalay 8 saac waanu go'aan ku gaadhnay inaanu ka qayb galno shirka maamulka Khartoum State. taasoo ay naga maalansiin weyday waxaa dalka yaga iyo dadka yagu qabaan inaanu la qabno. waxaan ku goynayaa waxba hadalka badin maayo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ka yimi laascaanood oo ilaa xalay soo socday waxaa shirkeennan waxaa maanta mar kaliya kumanaan ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ay isugu soo baxeen dibadbax ballaaran kaas oo ay si weyn ugu taageersanaayeen maamulka Khartoum State of Somalia oo maalintii shalay ahayd lagu dhawaaqay madaxdiisa sarsare. waxaana dadkaasi oo markii hore iyagu suuqyada magaalada Buuhoodle si weyn u buuxdhaafiyay ay markii dambe isugu soo biyashubteen garoonka weyn ee magaalada Buuhoodle halkaasi oo ay ka soo jeediyeen gabayo buraanburo iyo waliba halku dhigyo ay ku taageerayaan maamulka Khartoum State of Somalia. qaar ka mid ah dadkii halkaasi ka hadlay ayaa yiri maanta shacabkani wuxuu isugu soo banaan baxay taageerada dawladda دولة خاتم of Somalia State of Somalia وحلالية وحكا سهر جيدا هدعين وحوية عدا لالية عدي كورتي بادا عكتا الله مرينيا sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah abwaaniinta ka soo qayb galay banaanbixii maanta lagu taageeraya Khartoum State of Somalia iyagoo halkaasina ku soo bandhigay suugaanta loo yaqaano gabayga. روح مجرى سكر دينيا ركل ثاني بوليا يوم ملكك كشف روحك باقا يا معونا كذبك غاركية كسكابك يوني كلي تيبي كلو قلية qaar ka mid ah ururada haweenka oo iyaguna ka soo qayb galay dabaaldegii maanta ee lagu taageeraya Khartoum State of Somalia ayaa iyaguna shucuurtooda ka waramay. sidoo kale waxaa iyaguna banaanbaxaasi kadib shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Buuhoodle saraakiisha ciidanka gobolka oo iyagu ka soo noqday aagga hore ee dagaalka si ay uga qayb galaan kulanka maanta banaanbax ee lagu taageeraya Khartoum State of Somalia. cabdiraxmaan cabdilaahi axmed nuur afweyne oo ka mid ah saraakiisha gobolka ayaa shirkaasi jaraa'id saxaafadda u qabtay. anugu waxaan cabdiraxmaan cabdilaahi axmed afweyne dhammaan waxaan salaamayaa horta marka hore cid kastoo ay maqlaysa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan waxaan anagu nimid laba qodob oo kooban inaan saxaafadda kaga darsanno. lambar 1 waxaan u soo jeedinaynaa dadka dagaalku u haysto ee Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo cid kastoo taageersan inay ilaaliso midnimadeeda iskana ilaaliso cidda khalkhalka gelinaysa gudaha dadka. taas waxaan uga jeedaa hadallada faraha badan la soo tuurayo ee burburka ku keenaya bulshada dagaalka ku jirta ee la dagaalamaysa maamulka gobolada waqooyi galbeed. dadku wuxuu rabaa inuu wax iska celiyo cid kasta oo wax gaar ah danaynaysa way ka soo horjeedaan. bulshada saaka banaanbaxa soo saartay ee halka maraysa waxa weydiinta wax la weydiinayo waxay ku salaysan tahay cid baanu dirsanay cid baanu hawsha nooga wakiila cidda hawsha nooga wakiilka ah wixii ay go'aamisay markaan ka soo qaado isimadii Sool iyo Sanaag iyo Cayn ee shirka go'aaminayay laba qodob bay soo saareen. halka waxaanu ku dhisanay beedaan maamul
waxay ku xijiyeen waxaan u cilaaminaynaa bulshada Soomaaliya sanadkii cayn iyo cid kasta oo danaynaysa inay isdifaacaan oo dagaal bay cilaamiyeen banaanbaxan maanta lagu taageerayo maamulka cusub ee Khaatumo State of Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa kii ugu miisaanka cuslaa ee waqtiyadan dambe ka qabtooma gudaha magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaana banaanbaxan uu ku soo ilaaday jawi wanaagsan oo ay farxad ku dheehan tahay Ahmed Maxamed Nadiif Royal TV Buuhoodle Sorry.